بسم الله magacayga waa Saalax Macalin Caliw waxaan maanta ka hadlayaa Kenya Gazette-ka dawladda ay soo saartay taariikh 31 bishii koowaad sanadka 2022 volume number 21 ay degaano cusub ku soo saartay dawladda Kenya Gazette-kaas uu saxiixay madaxweynaha arrimaha gudaha Fred Matiang'i waan soo dhaweynaynaa degaanada cusub oo loo magacaabay Mandera County oo ka mid yihiin Dandu iyo Asxaabitu laakiin waxaa nasiib darro ah oo cadaalad darro ah in Qalaliyow sub-county aanan la soo gazette gareynin aanan la magacaawin aanan maaragtay loo aqoonsanin sub-county-nimadeeda sidaad og tihiin Qalaliyow waa degaan ballaaran oo ka bilaabanaya Gaduudiya Qalaliyow dariiqa Mataa Safara Beela Burabor Bulaxaaji iyo Fiiqow marka loo gudbo jidkan Mandera Iramo Qarbaqule iyo Karo marka loo gudbo jidka Arabiya Lafay Road loo gudbana waa Kamarayle Hareere Hoosle iyo Bidda qolada IEBC xisaabaadka ay soo saartay waxay qiyaasaysaa Qalaliyow ward ilaa 13,000 oo cod in degaankaas uu yahay tira ahaanna ilaa 25,000 ay gaarayaan dadka degaankaas degan dooda in Qalaliyow sub-county laga dhigo waa horay bilowday ilaahay ha u naxariistay Xaaji Bulow ayaa doodaas xataa madaxtooyada geeyey xafiiska madaxweynaha geeyey headquarter-ka regionka Garissa geeyey ilaa xafiiska county commissioner hamigu u lahaa in maaragtay Qalaliyow sub-county laga dhigo intayna ay maaragtay hamigaas ayna run noqon mas aanan la arkin ayuu Xaaji Bulow geeriyooday marka waxaa mas'uul iga saaran khaasatan aniga had Saalax Macalin Caliw in fikraddii uu ilaahay u naxariistay janno allaha geeya Xaaji Bulow uu ula rabay dadka minority-ga ah Kona tribe in sub-county iyaga ay helaan sida degaanada kale loo siiyey waan daba taagannahay haddeer waxaan baraarujinayaa qabiilada waaweyn in maaragtay xuquuqda Kona tribe-ka la xaq dhowro la ilaaliyo haddii aanan waxba lagu tari karin in waxba aan loo dhimin marka sidaa daraaddeed waxaan halkan fariin ugu dirayaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang'i xogayaha joogtada xafiiska madaxtooyada Dr. Karanja Kibicho in sida ugu dhaqsada badan leh ay Kenya Gazette ay ugu sharciyeeyaan Qalaliyow sub-county inta aanan la gaarin bisha saddexaad haddii la yeeli waayo waxaa noo qorshaysan inaan maxkamad u dhaqaaqno si dawladda iyo maamulkeeda looga qasbo Qalaliyow inay sub-county-gaas loo hagaajiyo taasoon annaga aan ognahay in maxkamaddana ay noo sharciyeyn doonto waayo sub-county-gaasi
kooxaha degan waa kooxo masaakiin ah oon u sajilaysan waddankan inay yihiin minoritieska taasna waxaa lagu soo saaray national gender and equality commission qoraalkay soo saareen in maaragtay kooxda minority-ga marginalizedka north eastern iyo Mandera county ay yihiin Kona tribe oo deegaanka qalaliyo ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa location cusub oo Dar es Salaam iyo sublocationka Burj Mariri sida aad ogtihiinba koox degan qalaliyo sub county oo majority ah ma balahanba dadka wada degan xataa qabiil kale haday ka yimaadeen waa minority waa bahya marka waxaan halkan ka jeedinayaa in qalaliyo sub county-gaas la soo saaro locationno cusub na la soo bixiyo waxaana ka mid ah dariiqada hadda in la kala jaro oo laba location la siiyo meegaag in maaragtay lagu daro iyadana location cusub in Shariif Iley location cusub la siiyo in deegaanka Jirma iyo Maykoreebi iyada laftooda location cusub laga dhigo in Karo lafteeda deegaankeedu waa ballaaran yahay waa ilaa kun ekar waay iyo wax ka ballaaran in deegaankaas iyada lafteeda la siiyo sublocation cusub in hareero hoosle iyo dhanka koro bedada lafteeda maaragtay location cusub iyo sublocation cusub laga soo saaro marka waxaan dadka Kona tribe aan ku boorinayaa aanan laga cabanin wixii la helay wax ka ballaaran hal raadiyo marka waxaan ugu dambeyntii madaxda Mandera iyo qabiilaadka Mandera aan ka codsanayaa ayaamahan waxaa lagu duulay Kona tribe in chiefkeeda iyo assistant chiefyadooda wixii shaqo ka fariisi retirement ka gaaro shaqo ka fariisi gaaro in qabiilada kale ay u soo dhigteen dadkan masaakiinta ah in maaragtay laga qaato chiefyaalkaas iyo assistant chiefyaalkaas hadda dhowr baa dhacday walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa in Kona tribe aad ka xishootiin wixii xuquuq ay leeyihiin ay haystaanna aad ku ixtiraamtiin oo banaanka ka martiin haddii aadan waxba u tirkirin aadan wax u dhimin marka wabillahi tawfiiq